hay-adda sirdoonka ee dowladda iiraan ayaa shaaca ka qaaday maanta inay gacanta ay ku dhigeen 10 ruux oo sida la sheegay la shaqaynaya hay-adaha sirdoonka ee reer galbeedka. macluumaad xasaasi ah ayaa lagu eedeeyey inay gudbinayeen 10kaani ruux. sidoo kalena waxaa la sheegay inay ka shaqaynayeen sidii weerar looga fulin lahaa waqooyi bari dalkaasi iiraan gobolada dhaca. ciidanka booliiska ee dowladda iiraan ayaa maanta oo talaado ah waxay shaacay ka qaadeen marka hore 2 ruux in gacanta lagu dhigay kadib baaritaan lagu sameeyey. baaritaankaasina uu sababay in lasoo qabto 10 kale kuwaas oo la sheegay inay la shaqaynayeen hay-adaha reer galbeedka ee sirdoonka. maalintii shalay sidaani oo kale dowladda iiraan ayaa sheegtay inay basaasiin badan gacanta ay ku dhigeen. hay-adda sirdoonka ee ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ayaa sheegay dadkan in loo gudbin doono hay-adaha ay quseeyaan maadaama lagu qabtay iyagoo ururinaya macluumaad xasaasi oo ay doonayaan inay la wadaagaan sirdoonada reer galbeedka. waxay dhacdadaani kusoo beegmaysaa iyadoo maanta Israa'iil ay sheegtay inay xaqiijiyeen geerida Cali Larajani inkastoo mas-uuliyiinta dowladda Iiraan ilaa iminka wax wala aanay soo saarin. waxay sheegeen inay beegsadeen xalay xilli uu ku sugnaa dhisme amni ah oo aad loo adkeeyey. waxay sidoo kale ay sheegeen Israa'iiliyiinta inay beegsadeen mas-uuliyiin sarsare oo ciidanka dowladda Iiraan ka tirsan. dhinaca kalena sida telefishinka Al Jazeera uu baahiyay dowladda Iiraan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ay sheegeen inay ku qaadeen xarun tiknoolajiyadeed oo ciidamada booliiska ee Israa'iil ay lahaayeen. sidoo kale Iiraan waxay sheegtay inay beegsadeen xarumo dhexe oo hubka lagu farsameynayay oo ciidamada Israa'iil ay lahaayeen sida wakaaladda wararka ee Tasnim News Agency ay baahisay. in la beegsado goobtanna waxay ka dhigan tahay khasaare in la gaarsiinayo tiknoolajiyadda Israa'iil. haddii sheekadan ay dhabowdana waa mid ka mid a weerarada ugu culus oo Iiraan ay qaaday muddada 18 maalin ee dagaalka uu soconayo. afhayeenka baarlamaanka ee dowladda Iiraan ayaa dhinaca kale maanta warbaahinta la hadlay waxaana uu soo hadal qaaday sida bariga dhexe uu u ekaan doono marka dagaalka uu joogsado. wuxuu yidhi bariga dhexe wejigiisa isbeddel weyn ayaa ku imaan doona laakiin Maraykanka iyo Israa'iil gebi ahaanba ahdaafta ama ujeeddada ay leeyihiin ma gaari doonaan. dagaalka kadib waxaan ka shaqayn doonaa dhismaha nidaam dowladaha islaamiga ay ku midaysan yihiin oo guud ahaan gobolka ah. waxaan ka wada shaqayn doonaa dhaqaalaha iyo sidoo kale amniga. sidaas ayuu bariga dhexe u ekaanayaa buu yidhi taasoo ka dhigan in dowladaha islaamka ay iskaashan doonaan sida afhayeenka baarlamaanka ee dowladda Iiraan uu maanta sheegay. afhayeenka baarlamaanka dhinaca kalena waxa uu sheegay in ciidamada dowladda Iiraan ay guuluhu ay ku dhow yihiin islamarkaana maalmihii ugu dambeeyey ay bartilmaamaysadeen xarumo muhiim ah. haddaba aan kula wadaago macluumaad ku saabsan Cali Larajani. inkastoo Israa'iil ay sheegtay inay dileen Cali Larajani haddana macluumaad rasmi ah ama xaqiijinta rasmiga dhanka dowladda Iiraan ayaa laga sugayaa. haddii in ka badan 24 saac ee sheekada aamusnaan ee u ekaatana oo ay raacdo saacada kale gaartana ilaa 48 saac ay soo socota haddii dowladda Iiraan ayna soo hadlin waxay u badanaysaa in macluumaadkaasi wax unay ka jiraan laakiin waqtiga ayaa wax walba inoo sheegi doona. Cali Larajani 20kii sano ee lasoo dhaafay wuxuu ka mid ahaa ragga ugu awoodda badan dowladda Iiraan. wuxuu ka soo jeeda qoys aad u saameyn badan marka la joogo gudaha dalkaasi. wuxuu hore u soo noqday wasiirka dhaqanka, madaxa warbaahinta qaranka ee dalkaasi Iiraan, gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Iiraan. haddana wuxuu ahaa la taliyo sare oo Ayatollah Cali Khamenei aad ugu dhowaa. sidoo kalena waxa uu ahaa xogayaha golaha amniga qaranka ee dowladda Iiraan. wuxuu door muhiim u ku leeyahay wadahadallada hubka nuclearka iyo siyaasadda amniga qaranka ee dowladda Iiraan. waxaa lagu tilmaamaa maskax siyaasadeed oo aanan caadi ahayn, mid ka mid a diblomaasiyiinta ugu adag, sidoo kalena fikrad ahaan aad ugu adag marka la joogo dalka Iiraan. maxay ka dhigan tahay haddii dalkiisa uu run noqdo? falanqayaashu waxay isku raacsan yihiin in khasaare culus ay tahay laakiin nidaamka dowladda Iiraan ma burburayo. maxaa yeelay nidaamka dowladda Iiraan ma aha mid shakhsiyadeed ee waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid hay-adeed. waxaana tusaale loo soo qaataa markii hogaamiyihii ugu sarreeyay dowladda Iiraan meesha uu ka baxay xaalku isma bedelin. waxaana jira dad kale oo si degdeg ah u buuxin karaya haddii booska uu banneeyo sida horeyba uu u sameeyey mas-uulka ugu sarreeya dowladda Iiraan Ayatollah Khamenei. laakiin waxay saameyn ku yeelan kartaa dhanka istiraatiijiyadda. dilalka noocaani oo kala badanaa waxay leeyihiin 2 natiijo oo ah aragtida Maraykanka iyo Israa'iil oo ah in ay aaminsan yihiin in haddii hogaanka ugu sarreeya dowladda Iiraan ugu yaraan waxyeello ay ku imaan doonto nidaamka islamarkaana isdhiibi karayaan ama istiraatiijiyadda ay wax iska bedelayso ama ugu yaraan in la wiiqi karaya nidaamka. iyo jawaabta dowladda Iiraan oo ah mid aanan ahayn isdhiibid oo waxay u badan tahay inay sii kordhin doonaan kaliya weerarka iyo jawaabta ay ka bixinayaan duqeymaha dhanka Israa'iil ka imaanaya. marka hogaamiyaal waaweyn la dilo inta badan kuwa kale ayaa bedela. tanina waa dagaal jiritaan oo aad u dheer maadaama hogaamiye kastaaba la diyaariyay 4 ruux ee bedeli lahayd. laakiin waxay noqon kartaa halis cusub oo dhalata
Larijani waxaa la sheegaa inuu yahay qof dhexdhexaad ah oo u janjeera mararka qaarkii dhanka wada hadalka. Inkastoo mawaaqiiftiisa aad ay u adag yihiin, haddana dadka qaarkii waxay ku tilmaamaan ninkan inuu yahay fikrad socota, nidaamka dowladda Iiraanna wax badan ku soo kordhiyey. Sidoo kalena waxaa la rumaysan yahay markii hogaamiye ugu sarreeya daaqadda uu ka baxay in isagu uu ahaa ninka lahaa fikradaha ugu waaweyn ee dagaalka iyo sii hagidda dagaalka ilaa iminka soconaya. waxaa jira qoraal gacanta lagu qoray oo bartiisa Twitterka saacado ka hor lagu daabacay markii wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil uu xaqiijiyey inay beegsadeen Cali Larijani. mas-uuliyiinta sidaani oo kale inta badan waxaa ka hadli jiray ra-iisul wasaare Netanyahu oo isagaba shaki weyn lagu gadaamaya xaaladiisa. qoraalka Cali Larijani ee Twitterka la soo dhigay gacanta lagu qorayna tacsi ayuu dirayay, laakiin waqtiga lama sheegin. haddii macluumaad kale uu soo kordho waan kula wadaagi doonaa insha Allah.